بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعنا وناكسن داود الملول بجوكتان كسو دوادا wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaaliyaba. Wararkana waxa ugu waaweyn wadanka Itoobiya golaha wasiirada ayaa ku dhawaaqeen xaalad degdeg ah wadanka oo dhan la geliyay iyada oo laga cabsi qaba in kooxda TPLF ay u soo gudbaan caasimadda wadanka ee Addis Ababa. guddiga doorashooyinka ee Soomaaliyana waxay ku baaqeen in dowlad goboleedyada ay si degdeg ah u bilaabaan doorashada golaha shacabka oo labadii kursi ugu horeysay shalay lagu doortay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. sidoo kale Soomaaliya iyo Kenya waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirkooda kadib go'aankii dhawaan ka soo baxday maxkamadda ICJ. waxay sheegeen in labada dal cilaaqaadkoodii darisnimo iyo walaalnimo uu sidiisii yahay. sidoo kale waxaan idin hayaa Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka qayb gashay kulanka 16aad ee golaha guud ee halbeegyada ee cabirada ee dalalka Islaamka ay ku mideysan yihiin. kulankaasi iyo waxyaabii ka soo baxay ayaan isla eegi doonaa. ee u diyaar garooba saaxiibayaal wararkaas iyo dabcan wixii kale nagu soo kordha. aan ku bilaabay wadanka Itoobiya xaalada adag ayaa laga soo sheegaya iyadoo golaha wasiiradu ay ku dhawaaqeen xaalad degdeg ah in dalka oo dhan la geliyo. sidaas waxaa shaaciyay wasiirka cadaaladda oo galabta shir jira ay ku qabtay magaalada Addis Ababa. sidoo kale wasaaraha wadanka wuxuu ku baaqay in la adkeeyo ammaanka iyo kala dambeynta. Ra'iisul Abiy Ahmed ayaa mar uu kulan u qabanayay maamulka sare ee xukuumaddiisa waxa uu sheegay in dagaalkii dhawaan ka dhacay gobolka Wallo ee dowlad deegaanka Amxaarada ay ka qayb qaateen ciidamo aan Itoobiyaan u dhalan kuwaas isugu jiray cadaan iyo madow. Abiy Ahmed wuxuu sidoo kale sheegay in dagaalka haatan socda uu u dhaxeeyay ciidamada Itoobiya iyo fallaagada TPLF uu guusha raaci doonto Itoobiya wuxuuna sida uu hadalka u dhigay isagoo yiri shaki kuma jiro inaan dagaalka ku guuleysan doono. meelaha qaar waa ay ku khaldami karaan balse natiijada kama dambaystahay Itoobiya ay raaci doontaa oo guuleysan doonta. Abiy Ahmed ayaa moodaa inuu culays dhinacyo badan kaga imaanayo kaas oo uu ka muuqday maalmihii la soo dhaafay isagoo maalmihii u dambeeyay si guud shacabweynaha Itoobiya ku boorinayay inay hubka nooc walba awood u leeyihiin ay qaataan si dalka looga difaaco. waxa uu ku tilmaamay argagixisada TPLF. hadallada Abiy Ahmed ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyay ay sii xoogeysanayeen dagaalka u dhaxeeya dowladda Itoobiya iyo kooxda TPLF isla markaana kooxda TPLF ay sheegtay in la wareegeen gacan ku haynta magaalooyinka muhiimka ah ee ku yaala dowlad deegaanka Amxaarada. qoraal maanta ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliya ayaa loogu baaqay dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo guddiga maamulaya kuraasta banaadiriga inay bilaabaan doorashada golaha shacabka. war-saxaafadeedka guddiga doorashooyinka ayaa ku sheegeen guddigu in si looga gudbo marxaladaha kala guurka ee wadanku ku jiro degdeg looga bilaabo doorashada xildhibaanada aqalka hoose guud ahaan gobolada dalka. labada xildhibaan ee ugu horeysay golaha shacabka ayaa shalay lagu doortay magaalada Muqdisho iyadoo ay harsan yihiin 273 xildhibaan oo ka kala imaanaya 5 dowlad goboleed Somaliland iyo gobolka Banaadir. madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa idin wanaagsan ku tilmaamay bilaabashada doorashada golaha shacabka wuxuu ka digay wax kasta oo dhaawici kara daafurnaanta doorashada. Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka qayb gashay kulanka 16aad ee golaha guud ee hay'adda halbeegyada iyo cabirada ee dalalka Islaamka ay ku mideysan yihiin ee loo soo gaabiyo SMIC. marayaha guud ee hay'adda tayadhowrka Soomaaliyeed mudane Aadan Xasan Barre ayaa ka mid ah xubnaha sida rasmiga loogu casuumay kulanka ayaa ka dhacay magaalada Madiina ee dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. marayaha intii uu socday kulanka waxa uu kulan daceed la yeeshay madaxda kala duwan ee ka socotay dalalka xubnaha ka ah SMIC oo ugu horeeyo dowladaha Sacuudiga, Turkiga iyo Uganda. shirweynaha sanadkan ayaa lagu ansixiyay soo jeedinta miisaaniyadda 2022 hay'adda iyadoo sidoo kale la isku raacay lacagaha sanadlaha ah ee ay bixiyaan dowladaha xubnaha ka ah hay'addan halbeegyada iyo cabirada ee wadamada Islaamka. 46 wadan ayaa ka qayb galay shirweynaha sanadkan oo Soomaaliya markii ugu horeysay ay si toos ah uga qayb gashay. waxaana hay'addan ku mideysan in ka badan 40 wadan oo u badan dalalka Islaamka iyadoo ay xoojiyaan halbeegyada iyo cabirada caalamiga ah. wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamedna waxa uu magaalada Muqdisho ku qaabilay safiirka Kenya u fadhiya Soomaaliya iyagoo ka wada hadlay arrimo ku saabsan xoojinta xiriirka labada wadan. labada mas'uul waxay sidoo kale ka wada hadleen qabanqaabada kulan ay yeelanayaan guddiyada wadajirka ah ee iskaashiga Soomaaliya iyo Kenya kuwaas oo qayb ka ahaa qodobadii ka soo baxay kulankii wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya ay ku yeesheen Nairobi bishii August 2021. 8 August wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo kan Kenya ayaa kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho waxayna ku heshiiyeen in la dardargeliyo kalfadhiga saddexaad ee guddiga wadajirka ah si loo wada aanbaqaado wada shaqaynta dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, ammaanka, difaaca, beeraha, dalxiiska iyo xoojinta xiriirka labada dal. madaxweynaha Kenya ayaa dhawaan sheegay in xiriirka labada dal meel xun gaari karo kadib markii maxkamadda cadaaladda adduunka ay Soomaaliya u xukuntay dhulbadeedkii lagu muransanaa. gudaha khiyaaray wararkeeni waa naga inta cidii warkeenu seegaan wax markale dib ugu heli karaan barteena internetka hiran.com. intaan kulmi doonno kulankeena dambe nabaday.